marka waxa weeyaan dawooyinkan barayna maxay anticoagulants waa dawooyinka loo isticmaalo in lagu yareeyo xinjirowga dhiigga kor inta aynaan anticoagulantska gaarin waxaan ogaanaynaa coagulantska ama xinjireeyaasha si uu dhiig fara badan u daadan ayaa waxa loo yaqaanaa coagulantska dawooyinka dhiigga faraha badan leh si uusan u daadan uga hortaga ayaa coagulantska loo yaqaanaa kuwa inuu dhiiggu si xad dhaaf u xarkago ama isku qabsado loo isticmaalo maxay anticoagulants some of the clotting is an essential function of a blood that prevents excessive blood loss from injuries clotting waa maxay ama xinjirtu ama xinjirowgu waa mid ka mid ah waxyaalaha ama shaqooyinka ugu muhiimsan ee dhiiggu leeyahay si looga hortago dhiig baxa faraha badan leh ee ka yimaanaya xaalad dhaawac qofka marka ay dhibaato gaadho ama dhaawac gaadho injurigaas dhiig bixiisa faraha badan laga hortagaan xinjirowga dhiig too much clotting haddii uu dhiiggaasi si badan u xarkago ama isku qabsado can be a dangerous wuxuu noqonayaa mid khatartiisa wata if clot haddii xinjirtu ama thrombus waxa loo yaqaano is formed ay samaysanto in a bloodstream dhiigga dhexdeeda ku samaysanto it can be carried to waxa la geyn location meel where it blocks meel ay xidhan lahayn a blood vessel meel ay xidhayso xididka dhiigga and blood flow iyo sidoo kale socodka dhiigga ama qulqulka dhiigga marka xinjirtii haddii la geeyo xididada dhiigga way xidhaysaa dhiiggii u socday goobtaasna way joojinaysaa marka goobtii uu dhiiggu tagayay xaalad caafimaad darraa la soo darxisaysa sidoo kale such blockage xidhnaashaha noocan ah waxa lagu magacaabaa maxay embolism baa lagu magacaabaa sidoo kale they can cause waxay sababi kartaa wax loo yaqaano xaaladda stroke iyo sidoo kale waxay sababi kartaa dhimasho stroke waxaan niri waa marka dhiigga maskaxda u socday uu joogsaday buu qofku stroke gali karaa coagulantska markaan u nimaadno waa walxo that are capable of converting blood from a liquid to a solid waa walxo awood u leh inay bedelaan dhiigga ama u bedelaan mid liquid ah una bedelaan solid dhiigga maxay ka soo bedelayaan dhiiggii dareeraha ahaabay u bedelayaan mid adag and promotes waxaana kor u qaadaan coagulationka xinjirowga kor u qaadaan kuwa wax la yiraahdo coagulantska waxaa ka mid ah natural vitamin K ga dabiiciga ah oo inta badan caloosha laga helo aadamaha loona yaqaano phytonadione مثلا may be given oral qofku wuxuu ka qaadan karaa afka ama by injection ama irbad ahaan ku qaadan karaa sidoo kale synthetic preparation maxaa ka mid ah menadiol sodium phosphate ayaa ka mid ah marka vitamin K maxaa loo isticmaalaa vitamin K waxaa loo isticmaalaa treatment daaweynta iyo sidoo kale prevention ka hortagitaanka of bleeding dhiigbaxa ayaaba lagaga hortagaa laguna daaweeyaa tusaale ahaan waxaa loo isticmaali karaa excessive oral anticoagulant use hadduu qofku isticmaalo daawada warfarin ama oral anticoagulantiga loo yaqaano xaddi ka baxsan xaddigii loogu talagalay si uusan u sumoobin qofkaasna dhiigbax u dhiman dawada vitamin K baa ah sumbaabiyaha warfarin sidoo kale caruurta waxaa loo isticmaalaa to prevent hemorrhagic disease dhiigbaxa ama tusaale ahaan caruurta qaar baa ku dhasha xinjiro la'aan inuu macnaheedu dhiigoodu uusan lahayn awood uu ku xinjiroobo oo uu macnaheedu qofka ilmaha ama qofkaas dhiigbax saayid ku iman salaaligeed vitamin K ayaa loo isticmaalaa anticoagulantska marka loo yimaadona prevent waxay ka hortagaan formation of new clot inay xinjir cusub samaysanto and the extension of a clot already present iyo sii dheeraashaha xinjir sii jirtay marka waxay awood leeyihiin
حنجرت عصبة سميسنا سنة جوجيان حنجرتي هراء سميسنتنا إني بابيان ما تفهمت أنتي كواغولانتيس are useful ومن واحتر له انترابي داو أهان يسوع كلام بروفيلاكسيس كورتجا حنون كلو يقانو فينوس ترومبو إمبوليزم أو حنون أنت بدن حدث هذا وليه فينوس are widely used وحال لو استعماله deep venous thrombosis كورتجا DVT حنون كلو يقانو أنت بدن كدعة legs كلوجها أي أنت بدن قف كدعة سو كله وحال لو استعماله كورتجا إمبوليزم كا in a rheumatic heart disease wadnaha salahan myocardial infarction kan soo qaadanayni iyo sidoo kale atrial fibrillation oo ah cudurro ku dhaca wadnaha ayaa markaa aw ku hortagi kara anticoagulantis iyadoo hadaba loo eegayo mechanism of action ka ama habka ay u shaqeeyaan dawooyinkan la isku yiraahdo antithrombotic drugs ka waxa kamid ah anticoagulantis kuwa loo yaqaano laba fibrinolytic agent kuwa loo yaqaano saddex platelet inhibitors kuwa loo yaqaano anticoagulantis agents ku dawooyinka anticoagulantis ku waxay hoos u dhigaan decrease fibrin formation inay samaysanto factorka loo yaqaano fibrin ama xinjirta inay samaysanto ayaabay ka hortagayaan madfan fibrinolyticna waxay sameynayaan xinjir sii jirtay ayaabay burburinayaan مثلا fibrinolytic fibrin ama plasminogen sii jirtay ayaa u bedelayaan mid burburtay sidoo kale platelet inhibitors maxay diidayaan ama joojinayaan in isqabsado unugyada platelets ama xinjirowga dhiigga ilaaliya isqabsashahooga ama aggregation kooga ayaabay joojiyaan iyadoo hadaba loo eegayo saddexda class ee anticoagulantiska class koowaad waxa la yiraahdaa indirect thrombin inhibitors baa la yiraahdaa class ka labaad waxa la yiraahdaa anticoagulant ama waxa la yiraahdaa vitamin K antagonist ama oral anticoagulant baa la yiraahdaa labadaba la oran karaa vitamin K antagonist iyo sidoo kale oral anticoagulant waxaana kamid ah warfarin ta kale waxa la yiraahdaa direct thrombin inhibitors baa loo yaqaanaa marka indirect thrombin inhibitors ka loo yimaado waxa kamid ah kooxda koobaad oo ah unfractionated heparin oo ah dawada unfractionated heparin ka ah ama loo yaqaano high molecular weight heparin iyo sidoo kale low molecular weight heparin kuwa la soo yiraahdo oo ay kamid yihiin enoxaparin dalteparin dinsaparin ayaaba kamid ah iyo sidoo kale synthetic pentasaccharideska dawada low molecular weight ka tusaalaha oo loo yaqaano fondaparinase sidoo kale oral anticoagulantiska ama vitamin K antagonistiga waxa tusaale ah dawada loo yaqaano warfarin direct thrombin inhibitors kana waxa kamid ah pyridine ifalodine argatroban malagatran مثلا marka inta ka imaado guud ahaan anticoagulantiska kooxaha ugu muhiimsan waa laba kooxood kooxda koowaad waa parenteral anticoagulanti ta kalena waxay oral anticoagulant parenteral anticoagulantiska waxa kamid ah dawada heparin enoxaparin waa maxay waa parenteral anticoagulantis baa heparin la isku yiraahdo labada nooc ee high molecular weight heparin iyo low molecular weight heparin parenteral anticoagulantiga oral anticoagulantis kana dawada ugu caansan waa maxay warfarin heparin markaan nimaadno heparin cannot be absorbed if given orally haddii heparin qofka la siiyo afka laga siiyo jirkiisa ma gasho salaadigeed it should be given injection waan lagu siiyo qofka ama IV ahaan ama subcutaneous labadaba ku qaadan karaan sidoo kale is a preferred anticoagulant waa dawada xinjirowga ugu haboon gaar ahaan used during pregnancy in la isticmaalo xilliga ama haweeneyda uurka leh iyo sidoo kale xaalad u baahan a situation that require a rapid onset of anticoagulant effect iyo xaalad u baahan
sida emergency xaaladda degdega ah ee u baahan in xinjiraha loo kala baabi'iyo ayaaba loo isticmaalaa adverse effect-ga waxaa ka mid ah hemorrhage dhiig bax baa ka mid ah ama side effect-ga ugu weyn ee heparintu leedahay heparinta qofku haddii uu isticmaalo overdose ama dose ka badan dooskii loogu talagalay xaaladda noocaasa ee keeni karta dhiig baxa waxa lagaga hortagi karaa ama sunbaabiyaha heparintu heparintu waa maxay protamine sulfate maxaa la isticmaalaa niri overdose marka heparintu ay noqoto ama in bukaanku dhiig bax aw aada galo maadaama uu qaatay doos ka badan dooskii heparinta loogu talagalay ayaabaa loo isticmaalaa markan kale in nimaadno ta kale waa maxay waa warfarin baa loo yaqaanaa warfarin waa oral anticoagulant maad fahamtay laakiin dhibta taagan waa maxay warfarin waxtarkeedu ama anticoagulant effect-gu waxa uu dhacaa 3 to 5 days after oral use qofka marka la siiyo kadib 3 ilaa 5 cisho gudaheed ayaa qofkaasi improvement yeelanaya ama wax ay u taraysaa ama jirkiisa isbedel ay ku keenaysaa sida la adligeed it is inappropriate for emergency use kuma haboono in la isticmaalo xaaladda degdega ah in loo isticmaalo kuma haboono therapeutic use maxaa inta badan loo isticmaalaa warfarin long term prophylaxis of thrombosis muddada fog ama muddada dheer si looga hortago inaysan xinjiroobo qofka dhiiggiisa xinjiroobo ayaabaa loo isticmaalaa adverse effect-ga ay keeni karto waxaa ka mid ah spontaneous hemorrhage dhiig bax joogto ah haddii qofku isticmaalo warfarin ka badan dooskii loogu talagalay taasoo qofka ku sababi karta inuu dhiig bax fara badan yeesho dawada lagaga hortagi karo ama antidote ku ah ama sunbaabiyaha ku ah waa maxay vitamin K marka la barbar dhigayo warfarin iyo heparin warfarin waa laga mamnuucay it is a contraindicator from a pregnancy waa laga mamnuucay haweenka uurka leh laakiin heparinta uu qaadan karaa qof uurka leh maalan kuwa kale waxa loo yaqaanaa anti-platelet dawooyinka anti-plateletku they suppress the platelet aggregation waxay joojiyaan ama hoos u dhigaan samaysanka ama isku xidhka xinjiraha anti-plateletiska waxaa tusaale u ah dawada loo yaqaano aspirin clopidogrel ticlopidin maad fahamtay aspirin clopidogrel iyo ticlopidin aspirinta dooskeeda inta badan anti-plateletka la odhan karo waa 75 milligram iyo 81 milligram aspirinta waxay ka mid tahay dawooyinkii NSAIDs waxaana laga mamnuuci jiray bukaanka qaba gastriga iyo asmada مثلا واحد أغاني ساسيو كلا ورفارين وكم ممنوع إن السيو قفكا جاستريا طبعا ما دام الدليل كصوبيا لكن واحد أنت بدل لقولكم الذكريات أما لقوانيا إنه استعماره انتظر كبعد انتظر كبعد إنه استعماره سأيسن وكل من كنينك ورفارين كأيام على شيء سيدو كلا واحد أغاني سا دولة ورفارين هي الدولة هبا الدولة أسبرين they are totally contraindicated ليس لما قادم they have a great drug interaction بس لما قادم كرو أسبرين ورفارين ليس لما قادم كرو totally ما دام يساويا بيجبح سائد ما دام يساويا ليس لما قادم كرو أنت بدل hospital مركز اللي جوجو وكانك مركز لقى دوين يو DVT ama venous thrombosis ka dawooyinka ugu horeeya ee la siiyo waxa koow ka ah heparin maadaama warfaarintu qaadanayso 3 ilaa 5 cisho waxtarkeedu waa qaadanayo waxa bukaanka lagu horeysiinaya heparin 3 ilaa 5 cisho kadibna heparinta laga joojinaya intaasna waxa la siinayaa warfaarin مثلا inta ka bacdi kuwa kale waxa loo yaqaan thrombolytic drugs thrombolytic drugs are given to remove waxa loo isticmaalaa inay bixiyaan
thrombi that have already formed حنجر مركي ورا السميسان ومحي thrombolytic lytic areas محكي تجي break واحد جليان حنجر مركي ورا السميسان مركي الدوين كا thrombolytic كا وحكم إذا كود streptokinase urokinase alteplase recteplase tenecteplase ما تفهم therapeutic use استعمال كود thrombolytics محل استعمالها كود acute coronary thrombosis حنون كله يقانو أما acute myocardial infarction محل استعمالها كذا deep venous thrombosis محل الله استعمالها massive pulmonary embolism massive pulmonary embolism أيه هدي أي كتوح حيوان فاهمين أما سؤال